تعالى وبركاته داود يا الملك استاد عالم كجوكتان كسو دوادا برنامج قارا أنكو وريسان دونو ماير كان مقالة بربراء ومدني عبد الشكور إن ماير كسو دو تي في عالمي هون كيبل تي في مقعيقو أحمد سيقوله إن وحاتمي ودن كان هولن sidoo kale waxa la kulantay jaaliyada Soomaaliland ee ku dhaqan wadankan Holland safarkiina muxuu daarnaa bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahadle marka labaad xanaad u mahad celinayaa on cable tv oo runtii mar walba u baahiyay dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo caalamkaba inay xaqiiqada dhabta iyo wararka dhabta ay helaan aad baan runtii kugu mahad celinayaa safarkan aan ku nimi Holland markii soo waxaan noo saamaxay waxaan caasimad ka hadlay dalka Sweden oo waxaan ay 3 maayar waxaan noo saamaxay markaa inaan Scandinavian-ka intooda badan aan ku wareegno macsuumadan soo macsuum marka ujeedada safarkayga hadii aan soo ururiyo soo koobo waxaan ka mas'uul lahay degmooyinkii loo doortay iyo xilalkii lagu aaminay waxa si cad u naqaanaa oo noo qorsheysan dakhliga dawladda hoose ee sanadka waxa kale oo noo qorsheysan dakhliga naga soo gala dawladda dhexe ee ku jira miisaaniyadeeda waxa kale oo noo qorsheysan hay'adaha qaaran bixiyaashu waxayna siiyaan intaas oo la sugeeyay aan ku qorsheynaa sanadka wax qabadkiisa anagoo garan karana sanadka waxaan qabanayno qorshayaasheeda waxaan aad ugu hilownay inaan bulshadeeda bal hadda aan ila kale oo wax ugu qaban karno ama khibradii waa aragnimo ka soo qaadanaa haato ama haato cid gacan naga siisa diplomatkan doonina dadkayna gaarsiino sidaas aan u soo kicitanay aan ugu wareegaynaa Scandinavian-ka oo dhan intee wadan ayaa tagteen qaaradda Afrika iyo qaaradda Yurub markii isku daro runtii sanadkii hore 2013 waxaan baasaboorka Somaliland aan ku maray 6 wadan oo Afrika oo mid walba baasaboorka Somaliland ku galay dan ku tiriyo waa Rwanda waa Burundi waa Tanzania waa Kenya waa Ethiopia marka sanadkii hore Afrika ayaan soo marnay iyo xaaladeeda iyo waxa inagana dheer yihiin iyo sida wax u qabsadeen halkan waxaan u maraynaa maadaama iyaga kuwan ka sii horeeyaan oo dawladda horumar ay yihiin bal iyagana inaan helno wixii aan bulshadeeda uga faa'iideyn lahayn ala aqal xitaa hadaan qaban karin inaan u sii jeexno oo aan u sii bud dhigno si qofka naga dambeeya mustaqbalka insha Allah qofna ma sii joogayo xilku waa maalmo bal markaa wixii aan qaban karnaa inaan qabano wixii kalena qorshiyo yaala iyo xiriidadiyo yaala inuu ka sii wado si fudaato sida weeyaan waftigiin intee xubnood ayuu ka koobnaa maayaradiina hadda waxaan ahay 3 maayar maayarkii Gabiley maayarkii Boorame waa gudoomiye ku-xigeenka dawladaha hoose ee jamhuuriyadda Somaliland waa kulli waftigeyga anaga horkacno ahaa oo madaxno ahaa 3 maayar baan ahay meesha ku marnay maayarkii Berbera aniga intii aad halka joogtay dhawaan magaalada Berbera waxa lagu xiray wasiirkii hore ee amniga runtii waxa ka dhacday halka weerar oo loogu tagay xilli habeen bar gurigiisa arrinka maxaa ka ogtahay kulli runtii waan ka soo maqnaa dalkii dawladuna waa waajibaad iyo xiliyadu ay leedahay cid kastoo ay u aragto in ay dhibaato ku hayso amniga ay mas'uulka ka tahay waxaan aaminsan tahay waajib qaran oo ay gudanaysay marka waxaan ka warayaa media suman kala socdaa halka inta san ka ogaano dawladda laftigeeda miyaan is oran karin weerarkaas waa weerar ka yara fiicnaa sida ay ula dhaqmeen wasiirka hore amniga waxa jirtay wasiirka la sheegay in maalinnimadii galabtii uu suuqa joogay isla markaana uu ka shaaheynayay suuqa miyaan yara qurux badnaan lahayn in intii gurigiisa habeen bar lagu weerarayo oo laga argagixinayo carruurta in lagu tago magaalada oo si tartiib loo kaxayo oo su'aalaha hadii la weydiinayo hadii la xirayaba aqligeyga maskaxdayda waxay oranaysaa wax kasta oo loo arko inuu caqabad iyo problem ku yahay amniga dalka waxay booliisku u arkaan waxay waajibaad u haystaan inay tallaabo ka qaadaan xil kasta iyo mas'uul kasta ha ahaado cid kasta oo amniga looga baqo looga cabsi baqo waxa weeyaan waxay amar u haystaan oo qaranka dhan loo sameystay ciidanka in lagu cajsi geliyo cid kasta oo dhibaato ku keenaysa amniga dalka
marka anagu uu dambaabay qalad buu sameeyay toona ma garanay laakiin waajibaadka ay qabteen ciidanka ay qabteen booliisku ay fuliyeen waa waxay u arkeen iyaga maslaxada ummadda inay ku jirto sidoo kale waxaa jirtay xildhibaano ka mid ah golaha deegaanka Berbera iyo waliba gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Saaxil in iyagana la xiray iyagoo mudaharaad oo raba inay dareenkooda muujiyaan miyaan la is oran karin cuno qabateynaya shacabka laftigooda dawladdu ku haysa haddaan si fiican halkaa waadaxaan weero waramo waxa weeyaan xildhibaanku horta marka hore xasaanad buu leeyahay sharaf iyo karaam buu leeyahay laakiin waa intuu isagu ilaashadaa waa intuu ilaaliyaa markasta uu ka xadgudbo inta uu xisaanada ku leeyahay waxa weeyaan talaabo sharci laga qaadaya markasta isagu uu jabiyo sharciga waa ay sharciga wax ku yahay sharci baa lagu soo doortay marka anigu aqligayga markaan si sax ah uga jawaabo arrinka sidaan ka warqabo soo sheegeen xiriirkii markaan sameynay maamulkii gobolka way codsadeen runtii laakiin mar haddii la yidhi bal naga suga anaga jawaab naga suga haddii awoodaygu u isticmaaleen ama ay kicin shacab isticmaalaan iyagu de waxa weeyaan wax laga qaadi karaa talaabada ku habboon sidaan horeba kugu sheegay qof kasta oo khalkhal looga boqo amniga dalka laguma ciiseynayo waxa uu hayo talaabo ma laga qaadaya iyadoo lagu badbaadinayo shacbiga intiisa kale anu saasan aamsana markaa aba xildhibaan ha noqdo ama wasiir ha noqdo cid kastoo amniga dalka looga boqo oo loo arko waliba kan waaba loo sheego waxa la yidhi ma samayn kartid ee nugu sin intaanu ku ogolaanayno hadduu diido wuxuu caddaynayaa inaan markaa aanay dowladnimo jirin marka qofka u horreeya dowladdii duminaya waa isaga marka waa in tallaabo laga qaadaa waxaan aaminsanahay in tallaabo laga qaadi karo qof kastoo sharciga ka hor imanaya waayo xisaanad buu leeyahay xisaantiisa in ilaashado unbaa miyan adiga su'aal ahaan haddaan ku weydiiyo xisbiga ayaa hadda ka tirsantahay anigu de in badanna miidiyaha waan ka sheegay waanan si fiicanna waan u cadday adigana waa kugu celinayaa anigu xisbiga ucid baan ka soo baxay xisbiga ucid baana ka tirsanahay ilaa haddana ka diiwaan gashanahay markii aan xisbiga anigoo aan xildhibaanba noqonin waxaan saxaaxayan agreement la galay inaanan ka bixi karin marka macnaheedu haddii aan dowladda shaqada iyo waajibaadka qaranka loo hayo aan ka soo baxo xisbigiibuu ka soo baxay maaha xisbigiibuu ka soo horjeestay maaha xisbiga ucid baan ahay ka tirsanahay laakiin siyaasadda aan leeyahay xisbiga ucid leeyahay oo ah in bulshada loo adeego horumar iyo maxaan ku dhahdaa horumarna iyo dimuqraadiyad baa loogu adeego dadka dowladduna waa inta iyadu ay maanta gacanta ku hayso mar haddaan iga maniciyeyno aanay ii deedin bulshadeedii inaan wax u qabto waan dadkayga inaan u adeego dadkayga wax u qabto mar haddaanay dowladda iyadu ii diidan iga soo horjeedin odhanayn waa xisbiga u ciday waxba iyuu dadka horumarna u qabanin dee anigu ma odhan karo sabab aan ula shaqayn waayaa ma taalo waana qasbun canhu weeyaan maaha mid qori caaradii waa mid qasbun canhu ahaa laba dowladood oo meesha jira dowladda ahda u cidiyo dowladda ahda kulmiya ma jirtee dalku hal dowlad buu leeyahay madaxweynena waa axmed maxamed xamuud siilaayo marka wax weeyaan waa shaqadii naloo doortay ayaanu haynaa ummadayada kalsooni iyo kalgacayl bay nagu dooratay waxay noo doortayna inaan dadkayga wax u qabanaba ahayd halkan waxaan u maraynaana waa inaan dadkayga iyo bulshadayada wax u qabanno marka maadaama waxqabadkii meel kasto aan waqti kasta iyo meel kastaba aan ugu qaban karo bulshadeydii macnaheedu maaha xisbigiibuu ka baxay haddii lagaga baxayo in bulshadeeda wax loo qabto oo uu xisbiga cid ka soo horjeedo in bulshadeeda wax u qabano macnaheedu uma noqonayso mid loo dabran yahay loogu xinaanayo sharti in haddii ay noqonayso dowladda laga soo horjeesto oo dowladda liddi lagu noqdo mid kastay timaado la khaldo dee waa xisbiga intuu qoriyo gurtaha la soo dagaalamo dowladda waa soo noqdo xisbi dee xabad wax ku doonaya laakiin waxa weeyaan anaga waana loo dhaariyey kitaab baan gacanta u saarnay inaan ummadayada u adeegno ummadayada adeegaygina dowladda waa isku barbartaagaynaa waana kula shaqaynaa siyaasadda waa taageersanaa waxaad tirsan tahay xisbiga ucid waan gartay waxaa jirtay in xaflad ballaaran laydin qabtay oo kasoo qayb galay wasiirka madaxtooyada mudane xirsi miyaan la is oran karin kulankaasi waxa laynagu soo dhaweynaya xisbiga kulmiya anaaba ku caddaynaya anaga abaabulay anaga xafladda qabanay anagaana caddaynin siyaasadda ku taageernay laakiin xisbi ahaan maanan ka bixin anagu siyaasadayadu waxa weeyaan inaan bulshadeeda iyo dadkayga wax u qabanno dhanka dhaqaalaha ayaan u imanaynaa kastamka berbera
dowladda hoose waxa uu ku taageeraa lacag dhan 12.5 lacaga runtii waa dhaqaale aad u badan baahiyo badan ayaa magaalada berbera ka jira haddii tahay waxbarashada haddii tahay caafimaadka haddii tahay korontada lacagta aad ku tira badan iyo baahiyaha berbera ka jira adiga ahaan sidee u aragtaa arrinka qalu boqolkiiba 30 xariga ka jaro boqolkiiba 70 waa lagu daalay xariga laga jaro marka waxaan qaban weynaa adiga kuma muuqda malaynta ku xanuunay xaqabadka waxa ka muuqdaan bulshadeeda iyo degmadeeda waxaan qabanay cidna ugu faarimayna waa waajibna saaran inta ayaan ka badan inaan gaarsiino ayaanu doonaynaa waana gashaa haddaad u baahan tahay ama midiyuhu baahan yahayna waan soo dhaweynaynaa inaan taabsiino tusno waliba wax ka dakhliga soo galay meesha ku baxay sidaan ugu qabanaba anaga diyaar la hospitaalka berbera waxa uu ku jiray hospitaalada ugu fiican Soomaaliland waxaa la sheegaa mararka qaarkood in raajada xataa loo aado magaalada Hargeysa arrinka maxaa ka leedahay marka waxa weeyaan waqti kala guura baad ka sheekeynaysaa waxaan jiray dhakhtarka ugu horeeya Soomaaliland waqti dhexe oo ka soo bilaabma 2000 ilaa 2003 muddo yar oo kooban buu hoos dhac ku yimi waa la wada ogyahay waxa isu xilqaamay oo guntiga dhiishis kaga dhigay dhalinyar deegaanka u dhalatay oo u kacday oo gobolka saaxil ka soo jeeda oo guddi soo abaabulay waxa ay gaarsiiyeen heerka ugu sareeya maanta Jamhuuriyadda Soomaaliland waa isbitaalka ugu horeeya ee imika adeega ilaa magaalo gobolka oo dhan u qabta adeegi caafimaad ee gobolku lahaa marka maanta wuxuu marayaa meeshii ugu wanaagsaneed shacbiga isxilqaamay iyo dawladda iyo hay'ada wixii gacan ka siyaabana maanta wuxuu marayaa mana jirto raajaa wax walba uu leeyahay malaad ka maqantay ilaa iyo wuxuu leeyahay talaagadii meedka lagu dhigay waan abad weligeed baan Berbera yeelanay oo 6 qof lagu kaydin karo oo meedka lagu kaydin karo dhanka markaan u nimaadno korontada Berbera waa magaalo aad u kulul oo runtii ka kulul magaalooyinka kale ee Soomaaliland waxay u baahan tahay runtii koronto dhiyanayda waxaad ka soo shaqaysay warshada korontada intaadan xilkan qaban dhankan korontada intii aad joogtay maxaad ka bedeshay maxaad ka qabatay bismillaah waa su'aal aad wanaagsan horta marka hore degmada Berbera waa degmada kaliya Jamhuuriyadda Soomaaliland ay warshada leerka gabi ahaanteed bay dawladdu gacanta ku hayso mala waa lagu sheekeeyay waa degmada kaliya dabkeedu 24 saacadood yahay ka taajirka iyo ka faqiirkaana isku si ay u helaan ninkii iibsan karaya leerka problemkii dhibaatada kaliya taala waxa weeye waa barayska qiimaha oo dalka qiimaha waa laga siyaa laakiin iyagu way uga baahi badan yihiin dalkan imkaan joogno ee maanta ugu horeysan Soomaaliland oo dalka ku hormaray wind powerka ujeedooyinkan safarka ku jira waxa weeyaan inaan helno iyadoo Berbera subhanahu wa ta'ala uu siiyay qiimada fara badan oo ay leed ay haysato dabayl haysato joogta oo ay qorrax joogta haysato oo ay badii leedahay oo ay dhuxul dhagaxdii leedahay bal hadda wixii lagu jebin lahaa ee qiimo jaban loogu heli lahaa iyo dadku sida ay wax u qabteen leerkoodii ay leerkii source-ka ka helaan ujeedooyinkan u soconaya ka mid tahay iyadoo waliba aanan ku haleelin bulshada anagu de maqrafadana sidanino aanan dawarsanayna lahayn wax noogu ridaana lahayn laakiin alla naxna waan qabsan karnaa waxaan la qabtan doonaa marka qorshaha leerku waa himilada koobaad wax qabadkuna wax weey adeegii in dadku helaan dab 4 saacadood magaaladuna way haysataa dab joogtaa bay haysataa marka mustaqbalkana waan horena waan sheegnay waxaan ku dadaalanaa mar walbana in qiimo jaban leer qiimo jaban hesho waxaa jira dhalinyaro badan oo ka soo jeeda degmada Berbera oo runtii bila shaqo oo Berbera dhex jooga waxa tahay maayirkii magaalada Berbera dhalinyarada laftigooda maxaa kaaga qorshaysan balse maxaa u qabatay intii aad joogtay runtii waa su'aal aad u qiimo badan dhalinyarada horta wixii tahli karo ayayna jaamacad galaan waxaan ka bixinay 228 arday baan jaamacad ka bixisay dooda hoose Berbera 3 jaamacadood baa ku yaala 3 jaamacadood kolba kii doorto ayaan ka gudbay 228 arday waan ka si aqoontoodii waxbarashadooda si wataan qaybta sportska ciyaaraha waxa weeyaan intaan u qabano ayaan waliba live ka dhignay waxaan jeclay mar walba in ciyaaraha iyadoo ay bad gaar ah leedahay ciyaartii baduna ay nasiib u helayaan ay nasiib leeyihiin
sanaan u qaadnay intii anaga awooddeeda qorshayaasha aan iminka halkan uga bashaareynaya aan u sheegayaana waxa weeyaan qorshayaasha halkan aan ka helnay sidii dhalinyarta sportska ee reer Berbera gobolka saaxil sare loogu qaadi lahaa waxaan helay cid naga taageerta wax nagala qabata oo insha Allah bashaarooyin badan iyo ballan qaad noo sameeyay anaguna markii horeba gacantaanu ku haynay waxaan ballan qaadnay inaan aqligooda iyo cilmigooda labadaba aanu dhisi doono oo waxaan ka qabanaynaa day way ka warhayaan dhalinyaradu waxa kaliya shaqo abuur u baahan tahay oo in amal badan loo sameeyo taasna dawladda waddanka waad ka wada warhaysaa Roma maalikii lama qadsin maalin been baa la dhaqaajinaya laakiin waa himladaydu waxa weeyaan inaan dhalinyarta xooga saarno waxa la aalay waxaan u qaban karno inaan la qabano dhanka taariif marka uu nimaadno dhalinyarada ugu badan ee soo taariifta hadii waxay u badan yihiin reer Soomaaliland runtii degmada Berberana waxaa jirta dhalinyaro badan oo ka soo jeeda oo runtii aad u soo taariibay dhalinyaradaas taariibaya ama taariibka waxa idinka qorshaysan dawladda hoose ahaan haddii tahay wacyigelin haddii tahay ka hortag haddii tahay wax kastaba ha noqotee ma jirta ama wax idinka qorshaysan taariibka hayo waxaan shaqo abuurka loo sameynayaa ee dhalinyarta loo ilaalinayaa dhalinyarta ama aqoontooda loo korinayaa ama muruqooda iyo xoogooda loo korinayaa sportska loo aanu dhiirigelinaa waa inuu ku yaraado runtii laakiin waxa aad u ayaan daraa anuu aad runtii ii yara dhiba ilmaha waalidkii soo korinayaa iskuul buu gelinayaa jaamacad buu ka saarayaa maalintuu ay lahaa baa loonayaa wuu isdilayaa inankii haddii aqoontiisu xiri kari weyday aqoontu soo bartay intaasoo sanad ugu soo tabcay ay dabri kari weyday noloshiisa ku maaray kari waayay runtii aad bay ugu adag tahay fahamkiisa inaan fahmi karo inankii waa lagu soo tabcay jaamacad buu soo dhammaystay waa graduate weeyaan wuxuu sitaa degree buu sitaa noloshiisa kaliya aabihii hooyadii toona maanta waxba loo baahnaa noloshiisa quri maaray kari waayay dalkana waa loo soo dhintay oo naftaa loo soo huray waa laga wada tahriib laa oo laga carari laa lama xoreeyeen dalka haddaan dalkaan la doonay marka anu kulli fikirka aad baan uga soo horjeedaa oo ma kulli waxaan fahmi karo ma waxaan aaminsan xanuun yahay dadka ku dhacay u baahan xanuunkaas in dadka laga daweeyo weliba dhalinyarada laga daweeyo waayo waxa weeyaan qofku inuu noloshiisa maareyn kara waxa weeyaan markuu shahaado qaatay markiiba wuxuu doonayaa in halka uu sarreeyo gaaro suurtagalna maaha noloshu uu dhulku taxad ka soo bilaaba dabadeedna uu sara ugu gaara oo koriya aqoontiisu waa in naftiisa oo kaliya horta maareyn karta haddii laakiin naftiisa maareyn kari waayo mujtamacana ma maareyn karayo marka kulli anigu waxaan aaminsanahay aqligaygu weeyaan fikirkaygu aniga wixii awoodayada ah inaan kala dagaalano oo aan wax kala qabano oo aan amal u abuurno oo aan aqoontooda kordhino dawman qaban karnaa anagu ugu dambeyntii barnaamijka gabagabo waxaad ku sugan tahay waddankan Holland gaar ahaan magaalada Rotterdam waxaad soo martay wadamo ka mid ah qaaraddan Yurub waxaad la soo kulantay jaaliyadda Soomaaliland ee ku kala dhaqan saddexda waddan maxaa fariin ah maxaad ka codsanaysaa TV-ga caalamiga ah aad u marsiinaysaa qolba jooga bismillaahir rahmaanir rahiim wataan runtii su'aal aad u qiimo badan haystay chance mid waxaan odhanayaa qurba joogta ka soo jeeda gobolka saaxil waxyaalaha aad halkan uga faa'iiday safarkaygan ii bayaamiyey dad u hiloobay oo doonaya dadkoodii inay wax noqdaan laakiin xiriir aan jirin taagan waxaan ka ballan qaadayaa marka ay imika gaadho waqtiga imanayaan qurba joogta gobolka saaxil oo dhan inaan u sameeyo kulan u sameeyo aan soo casuumo on gobolkii saaxil ku soo casuumo una sameeyo xiriir qurba joogta iyo dawladda hoose ee Berbera ka dhaxeeya xiriiriya taasoo aan aaminsanahay cid kasta dal kasta ay joogaan wuxuu qof kasta ku tamaniyay wuxuu qof kasta u ordayay inuu dadkiisa wax u qabto oo wax ku celiyo marka waxaan moodayay inuu gaabkaas maqnaa marka horeba aanu jirin laakiin waxaan u ballan qaadaynaa halkan fariin uga farayaa meel kasta oo caalamka ka joogaan qurba joogta gobolka saaxil inaan idin sameyn doono xiriir iyo xafiis la soo xiriirtaan oo ku soo hagaajisaan oo aad xitaa ka heli kartaan waxaan diyaar u nahay kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda joogaba inay xaqiiqada dhabta ah aan hafarku aanu ku jirin inuu awood u heli karo access u yeelan karo inuu ogaado dakhliga dawladda hoose iyo meeshuu kalaba xataa waxaan tusi karnaa aan ku wareeji karnaa qandaraasyadaan bixinay cidda qaadata waxa laga qaranayna haba yaraatay ma jirto taas waxay keenaysaa furnaansho
taas waxay keenaysaa dhiirani taas waxay keenaysaa in qof kasta oo gobolka saaxil u dhashay inuu u soo hiloobo oo wax badan u soo kordhiyo marka meel kasta oo tagno waxaan lagu soo dhaweynayay waxaan u qaban karaynaa dalkeena waxa halkan ka caawin karaya marka taas oo la sugeeyay waxaan aaminsanay dalkeena iyo gobolkaygana iyo degmadeeda wax badan ay u tari doonto anigana kulli wax badan oo aan isleeyahay marka waad qaban kartaa ya oo aan halkan ku arkay waxaan jeclahay insha Allah in la guriyo noqdo oo wax badan oo aan ka bedeli doono insha Allah waan kaga dayday meelahan waxaan ku arkay oo aan ku dhiirigelinayo tusaale ahaan oo kale dreyntan oo kale iyadoo roobku da'ayo sanadka oo dhan roob helayo haddana maaha geedku si waale uma baxay waa geed nidaamsan oo la dhaqay oo la dhisay oo laga shaqeeyay marka bulshadeediina insha Allah waxaan ku dadaali doonaa magaalada Berbera cimilada kulushahay una baahan dhirtan in lagu beero waliba kana bixi karaan dhirta ka bixi karta inaan dhirta ka beerno aan biijadka u diyaarino hagaajino oo aanu intii awoodayada ah wixii aan qaban karin anagu aanu qabano wixii aan qaban karin dariiqeedu si jeexno insha Allah si ugu fududaato kan gidab aad iyo aad ayuu mahadsantahay waqtiga ay qaaliga aan siisay in daawadayaal barnaamijkii gaarka ah ku wareysanay maayarka magaalada Berbera Mudan Cabdishakuur intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka waxa la socodsiinaya anigoo ah Axmed Saciid Ali Axmed Sugulle tan iyo intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan lamid ah assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala